بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي عادة هيد هاستي aan jeclaa baan ku bilaabaynaa. Waxaan caawa waraysi la yeelanayaa qoraa aqoon-yahan Mustafa Cumar, Mustafa Cagtir loo yaqaano. Insha Allah taala wuu soo gelayaa haddaan u yeerayaa, laakiin inta aynu sugayno haastii caadada inoo ahayd baan ku sugaynaa. wax yar hada waan ku soo darayaa marka processkii waa socda waan sugeynaa.
بسم الله الرحمن الرحيم هلا هذا هذنتي وين دارتي waxaan malaynayaa afrika jooga mustafa marka lineka aad u culus afrika live-ka in laga soo geli karo ma hubo waa aqbalayo intaasoo jeer baa hadda tijaabiyey wuu diidan yahay marka waan tijaabinayaa insha allahu tacaala hadduu soo galana waan qabanaynaa haddii kale waxaan ka wacayaa whatsappka ama messengerka oon si fiican aan uga wada hadli karno ha u raadinayaa aad baan idinka raali gelinayaa networka aad u xun marka whatsappkaan ka gelayaa asalaamu calaykum mustafa may maqashaa وعليكم السلام ورحمة الله يوهن عبد الرشيد وكم أغلى aad baan kula ahaa kamarada wareeji waxaan malaynayaa networka xagga kala daciifa saa u toosi networka xagga kala daciifa saa darteed baad usoo geli weyda marka dadkii baan ku tusayaa halkan baan kugu wareysanayaa live-ku internet aad u culus buu u baahan yahay afrika dhib buu ku yahay marka ugu horeysa mustafa walaal waan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waan kaaga tacsiyeynayaa horena waan kaaga tacsiyey geeridii naxdinta lahayd ku timid walaalkeen faysal cumar oo si naxariis darraa ah uu u dilay ama baawur ooga tuuray cabdi maxamed cumar cabdiiley madaxweynaha deegaanka soomaalida dhibaatadii ku soo gaadhay iyo waan ogahay marka adiga iyo reerka gebi ahaan waan idinka tacsiinaya marka koowaad marka labaad waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo bal taariikhdaada qoraanimo anigu ilaa 2006 baan qoraaladaada akhrisanayay oo website-ada sida wardheer news kilil 5 iyo aad kusoo qoraysay bal ma iga wax yar ma nooga sheegi kartaa goorta aad bilowday iyo muddada aad qoraaga ahayd سيد عبد الرشيد marka hore aad baan u salaaman tahay fursaddan siisay inaan maaragtay ka warbixiyo taariikhdeedii qoraannimo waana ku baaqsan tahay tacsiyaha dhammaan intii dhimatay allah u naxariisto dad badan baa naga dhintay dhibaatooyin badan baa maaragtay waddanka dhacay kuwaan ku la mid ahaa walaalana marka dhammaantood maaragtay ilaahay u naxariistaan leeyahay ilaahay ummadda dhintaa ka dulqaado tan qoraannimada markaad usoo laabto waxaan ma garanaya xilli aan bilaabay si rasmiya laakiin waxaan xusuusnahay qormaqaaladii ugu horreeyey ee sameeyey inay ahaayeen xilligii aduu 2004 2003 gaarkaas inaan ku qoqoni jiray gaar ahaan luqadda habashiga iyo luqadda ingiriiska labadaba marka xilligaasay ahayd
sababaan u bilaabay iyo maaragtay wuxuu kale ma garanaya wuxuu kolley dadku iska jecel yahay ma jira qof walba marka taa baa keentay inaan maaragtay waxaan jecelahay buu ahaa anoo horumar baan sakay wax talagal ahaa oo barnaamij gaar oo nasiri ummadda saas aad yeeshid ma ahayn runtii wuxuu riwaayada oo jecelahay buu ahaa waad mahadsantahay adaa mudan waxaan jeclaan lahaa bal wax yar nin wax badan usoo joogay baa tahay siyaasadda deegaanka ama kasoo shaqeeyey bal xilliyadii kala duwanaa iyo waqtigan markaa isbarbar dhigtid isbeddelka iyo in la ogolaa critikiska ama dadka dhaleeceeya wax waqtigii maaragtay ka horreeyey cabdi maxamuud cumar iyo in kale bal wax yar nooga faahfaahay haddii la yidhaahdo cabdirashiid inta aan garanayo anugu intii hore ee waddanka aan joognay xaaladdu sida hadda ay tahay mayna ahayn waxaan garanayaa annagoo jijiga joogna oo runtii ka hadalla dhibaatooyinka jira oo teeblada iska fadhiisan oo ka sheekayna waxaan garanayaa annagoo maqaallo qorno oo qaarkano maaragtay la tuhmayo haddana aan ka baqaynin in baatana soo gaadho marka kolle wax laysma badhigi kara ma ahayn marka loo eego xaaladda maanta taagan waxaan odhan karaa xorriyad buuxda ayaa jirtay oo xagga qowlka ah iyo xagga qoraalka ah labadaba aad baad umahadsan tahay bal hadda beteriga iga yar dhacaya waxaan mobilka u fiirinay maana ku talagelin mobilkan kale chargerna waan soo qaadanayaa marka 1 minute haddaad ii samirtid charger baan halkan kasoo qabsanaya qolka igu xiga 1 minute haddii la yidhaah haye waay waan isku dayayaa hal mar oo kale hadda soo tijaabinaya asagana haye waan idinka raali gelinayaa facebookana hadda hal mar oo kale aan isku dayayaa bal inaan kusoo qabto ma uu yeelahayo marka waxaan u malaynayaa networka aad daciif waa mustafaw marka whatsappkun buu yeelayaa marka halkan aan kasii wadanayna insha allahu tacaala dadkuna way ku arkaan inkastoo mobile kale aan ku hayo su-aasha markii aan ka gudbo waqtiyadii hore iyo hadda shay u kala duwan yihiin bal xilal noocee aad kasoo qabatay mustafa adu ka shaksi ahaan deegaanka wallahi anugu deegaanka waxaan ka shaqeeyey muddadii u dhexaysay 1996 iyo 6 ilaa iyo 2007 inta badan waxaan u shaqeeyey hay-ado kala duwan oo hay-ado NGO iyo UNTR laakiin dowladda waan u shaqeeyey xilli kooban baan runtii dowladda xil maaragtay mas-uuliyadda u qabtay inta kale waxaan ahaa khabiir maaragtay ama expert maaragtay xirfad ku shaqeeya waxaan markana ahaa mar baan wasiir ku-xigeen ka noqday deegaanka oo aan xafiiska waxbarashada 9 bilood ka shaqeeyey marna waxaan ahaa maareeyaha meeshan macallimiinta lagu tababaro TTI-da labada jeer ayaan maaragtay xil ka qabtay inta kale waxaan ka ahaa xirfad leh meesha ka shaqeeya uun baan ahaa xafiiska kala duwan u shaqeeyey xafiiska waxbarashada xafiiska oran jiray sanduuqa horumarinta labada xafiis baan ka shaqeeyey intii aan joogay deegaanka waa mahadsantaha waxaan akhriyay maalin dhowed qoraallo taxanaha ood soo dhigtay oo dulmidiidnimadaada ama underdogga mar walba saa u ahayd ama u garab istaagi jirtay dadka maaragtay kuwa aan codka lahayn iyo kuwa maaragtay mar walbaba aad u diidi jirtay kuwa amarku taaglaynta saraakiisha waddanka haysata iyo nimanka mas-uuliyiinta waqtigaas sheeganayay waa wax lagaaga mahad celiyo aad iyo aad oo dadka aanu shakhsiyan kolley waan jecelahay dadka mar walba kuwa dulman la jira iyo kuwa tabarta yar bal dhibaatooyinkii kaa soo gaaray cabdi waan ogahay laakiin intii ka horreysay dhibaatooyinkii kaa soo gaaray inaad critic ku ahay dowladda ama aad dadka dulman aad garab istaagaysay bal wax yar nooga taabo mahadsanid cabdirashiid kolley niyow dhaqankan qoraalnimada dadkeenu aad uga yaqaanaan oo bulsho wax qorta mini bulsho oral society aan nahay inuu gabyaabaan leenahay badan oo maaragtay xaaladaha jira cabira laakiin qoraalnimadu wax maaragtay soomaalida ku cusub weeye
تعدرتي waxay mar walba jirta fahandarro badan xagga bulshada dowladda xaggeeda shaqo ka elis iyo adigu maaragtay caga juglayn iyo cabsi fara badan iyo waxaas iska caadi oo iska wax iska jiray ahayd mar walba laakiin anigu inta badan dhibaatada ugu weyn la soo darsaa waa fahandarro xagga bulshada iga timaada taas oo keenta maaragtay marar badan runtii aad maaragtay ka cadooto waxyaalaha qaarkood maaragtay dib waad ka shakido maaragtay faa'iidada leedahay inaad qorta maadaama ficlinta ka timaada bulshada badankeedu uu yahay mid qoraannimada u arka qof faduuli oo kale ah oo waxyaalaha faraha badan ee waxaa ka mid a iska aamus maalin qof baad saaran tahay shalay waxaad ka hadlaysa mawduuca maanta kaasaad ka hadlaysa waxyaalaha u badan ee maaragtay aan runtii caqabadaha igu noqdo kuwaasaa ka mid a dhinaca dowladda oo kale waan soo qoray waxaan jecelahay in dadka badankiisu ay akhristeen iyagaan u dayn lahay si akhristaan si aan dib ugu celin laakiin waxay u badnaayeen shaqo ka heli fara badan iyo dee mar walba in magaca lagu garaboodo maadaama oo mar haddaad wax qorayso ama aad ka hadlayso waxaad ka hadlaysaa siyaasadda ay soo gelayso in mar walba lagu tuhmo inaad maaragtay tahay qof qaswadeena oo maaragtay saa darteed handadaad iyo shaqo ka helis iyo shaqo ma qaban kartid iyo xilalkii shaqooyinka laga ilaaliyo waxyaalahaas kula soo tarsay inahaasaa soo arkay aad baa umahadsantahay dadkeena waa oral society qoraalka waxay ka jecel yihiin hadalka waa saa sheegtay ta kale ma kala garanayaan reporter iyo analysis iyo maaragtay iyo qof analytic oo wixii analyze gareeya iyo mid reportera iyo mid brutationa qoraagii wax walbaa loo qaadanayaa marar badanna waxaa dhacda facebooka inay dad dhalinyaro ah ama dad kale ay khalad kuu fahmaan oy ku xagxagtaan ama aflagaada ay ku geeyaan waan ogahay dad badan baa ku yidhi iska daa waxbaha kusoo qorin mustafa oo nin aqoon-yahanaa tahay meelo kale wax ku soo qor anuka shaksiyan waxaan aaminsanahay dadku meesha ay joogaan luuqad ay fahmayaan in wax loogu qoro oo lagu fahansiiyo haddii aan bejaj ama website sida wardheer news oo dad yar oo iliida ay akhriyaan ama New York Times aan ku soo qoro anoo Soomaali ka hadlaya ama aan af English iyo af Carabi ku soo qoro anoo dad Soomaali la hadlaya inayna wax badan ka faa'iidin baa laga yaabaa ama wacyigii inta badan inaysan gaarin message-kii ama fariinta aad diraysay marka halhays waxaa jira horey aan u sameeyey oo ahayd war dadku waxay fahmi karaan luqaday fahmi karaan oo u sheega waxay fahmi karaan luqaday fahmi karaan waana balance aad cajiib u ah because sometimes waxaa laga yaabaa inaad si aad u hooseeyo sharaxaad badan aad geliso waxaad sheegaysay oo qofka intellectualka ama educatorka uu yiraahdo ninku miyuu waalayaa sida carruurtii muxuu wax noogu sharaxayaa laakiin message-kaaga mar walba meesha ay ku jahaysan tahay ayay maaragtay yaa muhiima inaad isku daydid mujtamaca kuwaan wax baranin iyo kuwii wax bartayba inaad hal mar wax wada gaarsiisid oo message-kaagu uu gaaro arrinta ayada Mustafa waan ogahay anigii adiga wax caqabadiyo cay badan baa naga soo gaaray in badan baa lagu yiri ka joog iska daa dadkan lagula taliyay maxaad isooga dayn weyday cabdirashiid horta yaroo aan ku noqonaya jirto oo matalan anigu waxaan qoraa ku qori jiray luqada ingiliishka horta codkii si fiican baa loo maqlaa si fiican baa loo maqlaa ha dadku laaf badan bay soo tuurayaan saas dhaha markii laga bilaabo 2007 ilaa iyo 2000 iyo waxaan oran karaa 2010 ama ilaa 2010 waxaan xoog saari jiray luqadda ingiriiska waxaan ku qori jiray jaraa'idada wareer musliimiin iyo kuwa xabashiga Itoobiyaanka oo kale ah ujeedadan kale waxay ahayd in xilliga ayada waxaan aaminsanaa in dadka bulshada badankeedu ay ku baraarugsan yihiin dulmiga waddanka ka jira waa inaan dhibaato jirin dadku inay u yihiin waxa jira laakiin dadkaan uma ay yihiin beesha caalamka marka waxaa oydan sii ahaa marka iyada beesha caalamka iyo Itoobiyaanka kale inay ogaadaan dhibaatooyinka lagu hayo markii muddooyinkan aan waday feedback badan baan helay oo dad badan baa isoo qori jiray email isoo jawaabi jiray qaar wixii aan qoray bay diidayaan qaar way u raacayaan qaar talooyin bay siinayaan waxaa markaa dareemay in markaas qeybada dib uga noqdana in dadka aan la hadlayo badankoodu waxan ay og yihiinba dadkan aan la hadlayo ay u sharaxay halkaa dad baa lagu laayay waxaa ka dhacay dhibaato galowsha dad baa lagu laayay inkaasaa la dilay in la dilo maaha ishibaana haysta talabul waxaasa la qori jiray marka intaas badankeedu dadka aan la hadlaya ee aqoonyahaankii ay og yihiin way ku baraarugsan yihiin oo qaarkood iga fogdan yihiin dhinaca kalena hay-adaha internationalka ee sida
national iyo international media ay runtii aad la socdaan warar badan ay helayaan laakiin siyaasado kale ay jiraan oo u jiitan in waxaas ay ka hadlaan taas marka waxay keentay in aan idhaahdo malaha waxaa ka fiican dadkii waxaan kale bulshada ayaad u sheegto waxaa kaloo arkay in laga bilaabo xilligii 18 sano ka hor meelahaas si aan caadi ahayn loo weeraray bulshadii si dhaqankii looga bedelo si maaragtay afkaartii looga bedelo si loogu tuso inay dhibaato iyo gumaystooda ku jirin in narrativeyo kale oo horumar iyo loo abuuro marka kuwaasa la tartamay waxaa go'aansaday muuqata kuwa loo tartami karaya soomaalida sidaa daraaddeed in bulshadii aan soomaal ku hadlo haddii soomaalida ku hadashaa dabcadan meeshay joogaan tagto oo ah social media ay fadhiyaan haddii maanta o dhan aad ku qorayso sheedada aad ku qorayso dadka darigiisa xogaa uma badna marka taasaa keentay inaan facebooka imaado dad badanna facebooka waxay u haystaan oo runtii meel maaragtay ama jukaansi ka socdo ama maaragtay dadka low lifeka ee shaqada haysan camal la-aantii ay fadhiyaan marka hebel facebook ku jiraa waa xoogaa waxaad moodaa daliil tahay laakiin waxaan u arkaa inay faham darra tahay oo maaragtay hadda madaxweynayaashii adduunka iyo siyaasiyiintu waxay ku badaaween in media hor leh oo mainstreamkii ka xoog badan uu yahay social media sidaa daraaddeed social media waa arrin la deegtado waa sida telefishinka oo kale telefishin waxaa kasoo gala qur-aanka mid waxaa kasoo gala waxyaalaha baa kasoo gala tuulashooyinka mid waxaa kasoo gala kubadda mid waxaa kasoo gala midka maawilada carruurta marka qofku wuxuu rabu ka dhigi karaa social media haddaad ugu talagasho inaad ka dhigto meel bulshada ku badaanjiisan way noqonaysaa haddaad ay ugu talagasho inay noqoto meel ay ka fidiso arrimo kale oo muhiim ahayn oo ama noloshaada adiga khaas ahaan noloshaada ku saabsano halkaasaan maaragtay maanta tegey halkaasaan cuntada cunaya halkaasaan ku dabaalanaya hadda waxaa u isticmaashan waad heli kartaa xigmad u leedahay laakiin anu waxaan gartay oo u fahmay inay muhiim tahay in loo adeegsado in bulshada loo sheego waxyaalaha markaa aad leedahay xogtaasi way anfacaysaa mana aha inaad leedahay keliya la garanaya waxa weeye ra'yigaaga abresa uad gudbinaysaa qoraal ahaan wixna way ka faa'iidayaan waxaa jawaabta lagu siinaya waad ka faa'iidaysanaysaa marka runtii anu waxaa odhan karaa wax badan baan ka faa'iidaa dadku marka ay ka bixiyaan faallooyin and comments oo aniga laftiga diiga anfaca marka waa meel aan cashir ka bixiyo meel aan ka bartaan odhan karaa aad baa mahadsantaha donald trump oo maalin dhow lagu yiri twitterka iska daaba wuxuu yiri election dhan baa noogu guulaystay seena soo daaya twitter iyo facebook marka waa runtahay oo mediahan hadda adduunkan hadda electionadaaba lagu guulaystaa dad badan farmaajo guushii farmaajo facebook inuu qayb weyn ka qaatay bay aaminsan yihiin waa arrin kale marka facebook dadku sida u haystaan iyo sida wacyigelinta iyo qoomiyadda oromada ah oo 40 milyan ah hal wiil uu oga abaabulay uu isugu dubariday xaqooda inay raadsadaan aad bay u kala fog tahay laakiin waa wacyiga oo iska hooseeyaan odhan karnaa taa haddaan ka gudbo mustafa nin waxaa tahay siyaasadda taxliiliya oo maaragtay falanqeeya especially siyaasadda deegaanka soomaalida ah muddo badan aad u soo joogtay kasoo shaqaysay aniga waad iga khibrad badan tahay because weligay kama soo shaqayn xataa kuma noolaan deegaanka wax badan markii ugu badnayd waxaan u malaynayaa inayna 5 bilood ka badnayn anoo carruur ah bal hadda xaaladdu halka ay marayso iyo sida waxay u dhacayaan especially caawa oo cabdi maxamuud cumar cabdiiley uu yimid magaalada nairobi madax onf ay tageen sidoo kale mar dhow la ii sheegay inay wafdiga dowladda federaalka ay hogaaminayaan nin la yidhaaho gabre dhile oo military intelligencega ethiopia haysta iyo nin la yidhaaho gabre oo soomaaliya wakiil uga ahaan jiray hadda ka hor maaragtay ethiopia igaadna ka tirsan marka bal wada hadalka iyo arrintaa seed u aragtaa siyaasadda iyo qaabka ay hadda u socoto xilliga deegaanka soomaalidu mahadsanid cabdirashiid wallahi deegaanka soomaalidu wuxuu soo maray marxalado kala duwan sidaa wax yar hadday soo baxday raallah qof baa soo galay khalad buu soo galay fadlan waad daawanaysaan ha soo wicina messengerka waan ka saarayaa oo mardhow haye wad mustafa raallah raallah mustafa wax yar codkaagii baa gaabtay ma garanay sababta
raalli ahaada dad waxaa jira qashqashaad meerana oo marka aad live-ka ku jirtid uun kusoo wacaya marka mobilkii dhan baa freeze iga galay ma aqaan waxay soo direen waxay xaggay ka timid waxay ahayd telefoonkan kale oo live-ka kaga jiro ayaan wax walba ka saaray oon laiga soo wici karin marka kan kuma talagelin in laiga soo waco sidaasaa keentay in layna qaso laakiin waan kusii diyaar garoobay markii hore inaan layna qasin mustafa raallahow qof baa naqasay oo soo wacay codkiina wuu kaa gaabtay markaa may maqasha hadda ha waan ku maqlaa ha halkaa kasii wado aad baan uga xumahay raallahow waa runta haye hadda waxaan u malaynayaa wuu sugan yahay waad aragta كلي عبد الرشيد أرنتن دجان كنا قدر السنتهاي تدخل ماركتي محلات ربما يصومرين محلات ما أنت أي كل كان ما ينصوب ربع قواعد أنتي حتى أي تشوفي صابتها أنتي هذا كل رئيسي دتكين وهاي دت تحقيرن دنك دقائقها دنك سياسة لكن هذا واحد مدائن دلنا أي قرط وسارين أو رنتي waxaa la odhan karaa xilliyadii hore waxaa jiri jiray waxa la yidhaha marginalization dadkan waxay dad maaragtay la baylihiyey bay ahaayeen oo baylaha ah laakiin hadda waxaad moodaa dad maaragtay si caadiya loo gumaysanaya inay yihiin oo maaragtay cabsi iyo argagax aan adduunka kale maaragtay hadda ka dhamaaday aan dhulka badankiisa ku nool marka taasina waxay kolley waajib ka dhigaysaa dhammaanteed inteenan maaragtay nool waqtigan taariikhiga markhaatiga ka inaan maaragtay ka arrintaa maaragtay ka ficiloono oo ka hadalno oo maqti aan ka dhigno waa waajibna saaran arrintan hadda aad ii sheegtay wada hadallada fikirkayga si faahfaahsan baan maaragtay uga hadlay baryahan waatan soo bandhigay haddana anigu marwalba waxaan aaminsanay in maaragtay la galo oo arrin nabad lagu soo afjaro ma xuma mar walba dagaalka nabadda ka fiican laakiin heshiisku marka qadarkii haddii uunan ahayn maaragtay ka jawaabaya su-aalihii markii hore dagaal ku bilowday waxaa laga yaabaa inay heshiis la-aantu dhaanto guud ahaan marka ma rabo inaan detail usii dhexgalo arrintaas sababo fara badan awgood baryahan aad baa kulligii uga deeliyay arrimaha qaarkood oo maaragtay suuqa ku jiray deedna magaranaysaa waxaa afkaar kala duwan baa laga bixiyay arrintaas waxaan jeclahay inaan hadda ka warsugo oo aan arko wixii soo baxay inaan fadhino inkastoo qora ahaan shaqada qofka u taaqa ay tahay in uu sii odoroso waxa soo socda oo uuna ka hadlin dhacdooyinka markaa taagan marka waxaan iska xilliga ay ku habboonayd wixii aad odhan lahayd waad ka tiri arrintaas hadda waxaan rabaa inaan iska sugo oon eego wixii kasoo baxa dabeedna wixii aan isdhahdo waxaasaa hadda yaa u baahan yahay markaas kadib aan haddana aan maaragtay odoros kasii bixiyo hal arrin baa jirta oo in badan dad badan aan arkay kugu eedeynaya inaad qabiil magac dhowdid oo markaad qoraallada samaynaysid ree hebel aad kusoo qortid adiga oo qoraa ah intaad adu ka jawaabin aan laftigayga waan soo qoraa inkastoo damco inaan iska ilaaliyo inta badan laba sababood baana ayaana u soo qoraa kow soomaalida oo qabiilku sometimes address uu yahay iyo qofkii si aad u sharaxdid ama inkastoo degmo lagu sheegi karo midda labaad madaxweynaha deegaanka soomaalida waqtigan cabdi maxamed cumar oo aad u isticmaala qabyaaladda iyo qabiilka oo ka hadla sida masaajidka dhagax buur hadda uu ka sheegay imaam yiri madaxweynaha iisoo sheegay maalin dhaweyd erayadii iyo wuxuu isticmaalay hadda anu xataa anigay baa ka xishooday inaan kusoo celiyo oon soo qoro oon sidii uu yiri laakiin marar badan adiga waxaa lagu eedayaa inaadan u joojinin ood madaxa ku dhufatid mustafo bal sababta ii sheeg bal عبد الرشيد أرنتاس مالتي وأرين بدل مالتي صونو نقطة وأنا ما أنت إذا تجيتيسو
horta marka ugu horeysa bulshadeenu mararka qaarkood waxay u dhaqantaa sida waxa la yidhaahdo maaragtay goroyada la yidhaahdo madaxay aatataa ciidda si ayna u arag maaragtay waxa ay markaa diidan tahay oo kale u dhaqantaa waxa u muuqda oo dhibaato ah oo ay arkaan ayaa mararka qaarkood la isdiidsiiyaa marka hadday uu qofku qoraa yahay oo uu dhibaatooyinka bulshada iyo xaaladda marayso iyo kobaca bulshada uu ka hadlayo marka iyada waxa bulshada aasayso isagu uu ku qasban yahay inuu soo saaro marka qabiilka marka laga hadlayo waxaan filayaa in badan baa Soomaalidu waxay tiraahdaa qabiilku ceeb ma leh qabyaalada marka qabiil lama wadiidano dowladda Soomaaliya hadda dhisan waxaa loo qaybsadaa qabiil 4.5 asxaab xisbi ma marka inaguna bulshadaan kama duwanin dan Soomaalina ayaa deegaankan deegaanano ama Djibouti ha ahaato Kenya bulshada marka la gelayo iyo marka la waramayo kulli waad arkaysaa dadka qabiil ku hadlaya hal reeyahay waxaa tartamaya xildhibaan reebel iyo reebel yaa maanta tartamaya leeyahay iyadoo bulshadii marka qabiilka saas ugu dhaqmaysa hadda waxaa la rabaa inaan la sheegin oo looran qabiil yaa jira waxaa lagu leeyahay aaraam ka aamusno taa macnaheedu waxa weeye xanuunka ku hayaa sheeganin dawadiisii baadi baad u arkaa anigu marka qabiilka marna uma isticmaalo inaan ama dad isboodgeeyo ama aan maaragtay dad ugu heliyo laakiin waxaan u isticmaalaa markaan sharxayo dhibaato jirta inaana delin oo hadda haddii qofku yidhaahdo kuwan maanta dulmidiid sheeganaya xaggee shila joogeen cidda uu joogo adiga waan garanaynaa cid walba waa garanaysa hadduu mid yidhaahdo qoryaha hubka la ordayo qoriga meelaha wata cidda uu jeedo waa la garanaya marka mararka qaar waxaad soranaysaa maxaa faa'iido ay leedahay haddii aan laga xishoonaynin wixii caayda ahaa iyadoo oo la maldahayo qabiilkii midkee xun ma in maaragtay dad la caayo iyadoo magacii la maldahayo oo lagu xadgudbo oo gidaad maxaa waxaa anagu rabay u sameyn weydeen baa xun mise in qabiilka magaciisi la sheego layaa qabiilka ayaa lagu tuuray marka hadda tusaalaan ku siinaya dulmidiid nimanka la baxay tuugta wasakda maaragtay qabyaalada u socda inta leh ninkiya jid waa qaday maanta gartay u arkeen dulmigii in maaragtay inay xilligii ay diidi lahaayeen ay taagan yihiin yaan la aflagaadaynin keebaa qabyaalad ku dhaqmay qabyaalad marka magaca jid waarka soo qaaday mise ka intuu maldahay caayay dhibaateeyey qofku wuxuu ku hadlay xidaas ma garanaysa marka qaarkood qabyaalada laftigeeda waa system waa iyadoo lagu yidhaahdo dowladdu ma xun tahay mise way fiican tahay dowlad marka la leeyahay waa system iyadu Soomaalidu intii ay nolol qabiil iyo qabyaalad ugu dhex jirtay inta anigu aan noolahay psychology-ga siyaasadeed oo Soomaalidu qabiilka wada dhexgeli doono inta aan isla cilmiga ka dhigan tahay waxaa muhiim marka in la fahmo qabyaalad waxa loo adeegsaday siyaasadeedna xumeyd maadaama siyaasadda dowladuhu ay xumeyd qabiilkana wuu xumaa haddii matalan ba la odhan lahaa maanta oo kale inagoo reer hebela wasiirkii hebel ahaa inaga naga dhashay baa inoo keenay biyo iyo gawaari badan oo raashina laakiin reer hebel baa inaga bahay badan oo wasiir lahayn aynu u geyno kan reer hebel in la sheegay dhibaato ma keeni wanaag bay keentay sababtaa waxaa loo isticmaalay in wanaag wax lagu qabto guud ahaan arrintaa kusii dheeraan maayo waxaan ka wadaa kow dadku munaafaqada ha iska daayaan isagoo qabiil ku dhaqmaya oo qabiil ka shaqaynaya inuu haddana yidhaha qabiil yaan la sheegin waxaan u arkaa inay dawadiisi u diidan yahay sababtaa markuu qabiil ku dhawaaqo uu isla yaabaya waxaa arkaysaa qof hadalkii maldahayo caytamaya oo markaa tiraa reer baa u jirtaa ku odhanaya marka haddii marka horeba marka uu diyaar u ahaan lahaa inuu qabiilka sheego dhibaato badan buu ka badbaadi lahaa marka waxaan qabaa anigu qabyaaladda waxaa ku dhaqma qofka yidhaahda qabyaaladda niga daaya yaynaan ku dhaqmin laakiin qofka banaanka soo dhigay yidhaahda reer hebel saasuu leeyahay reer hebel saasay leeyihiin laakiin saasaa sax marka sidaa la leeyahay reer israacsan oo qabiil israacsan oo arrin isku raacsan ma jiraan generalization waa wax duuduub ma dhici karto reer dhan oo dul isku raacay ma jiro qoys baa isku raaci karin xaafaddaa isku raaci karin marka inta badan waxa afkaarta la sheegaa waxa weeye madaxda iyo siyaasadda markaa cidda sheeganaya baa laga hadlaa marka qabiil laga hadlayo marka anugu qabiilka inaan qoro waxaa keenaya bulshadeeni baa ku dhaqanta haddii bulshada aad tilmaamayso tilmaantaad bixinaysaa waa inay sax noqoto ma aha inaad maldahdo ka warwareegto intaa loo qoraa la rabaa laakiin dadka aan yaqaanay dadka aan la dhaqmay iyo dadka akhriyaatoona way arkayaan in meel gaara oo iyo cayiman oo qabiil oo meeshaasa ayaa maaragtay in wax la siiya ay tahay ama meeshaasaa dulman inayna jirin way arkayaan aad baad u mahadsan tahay laftigaygu saan u arko
qabiilku wanaag kulley Soomaali qabiil kama dhamaato sheekh iyo shariif dhowr jeer oo horaan ka hadlay iyo aqoon-yahan fiqitolkii kama janna tagay ku maamaaheen waxa weeye waa si walba waana waxaynu u soo joognay oo markaynu sheekaysanayno dadkeena aqoon-yahankii iyo dadka ugu culumaysanayo waxa weeye si hoose nin walbaba reerkaaga un eeg si hoose oo reernimo abaad marar badan u sheekaysataan laakiin anu waxaan u arkaa reerkaaga markay khaldan yihiin inaad qabatid marka laga khaldan yahay inaad garab istaagtid maxaa yeelay oo sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yiri arrintan wada hadalka Nairobi ka socda anu ka shakhsi ahaan uma arko Mustafow Cabdiile in la hor faraysto inay xal keenayso dad badan baa hor faraystay horey baa loo tijaabiyey intaasoo gruub baa u tagtay waan ogahay kaarar badan buu isticmaalayaa oo qabiilku ka mid yahay reer hebel baa inagu soo duulay reer hebel baa booskeena raba laakiin nasiib darradu waxay tahay reerka uu leeyahay waan badbaadinayaa musiibo asaga ka weyn kuma aysan dhicin intay jireen uma malaynaya intay jireen musiibo asaga ka weynna ku dhacday ama ay baabi'isay saa darteed anu fikirkaygu wuu cad yahay dhib ka weyn dadka Cabdiile ma haysto waqtigan xaadirka in la hor fariistana waxaan u arkaa oo mustaqbalka ummadda lagala hadlo iyo masiirkooda ninkii halkaa dhigay laftigeedu inuu jariimo tahan u arkaa iyo dembi dadku fikirkooda way u madax bannaan yihiin Ethiopia in lala heshiiyo miyaan ogolahay yes in wada hadal lagu soo dhameeyo haa laakiin Cabdi in lala hadlo ma aaminsani inuu noqdo wixii laga wada hadli lahaa baan aaminsanahay uusan noqon kii lala hadli lahaa laakiin uu noqdo wixii laga wada hadli lahaa musiibadan sidii ummadda looga kor qaadi lahaa taasana aaminsanahay waa fikirkayga khaaska ah insha allahu tacaala wasaad sheegtay waynuna sugaynaa wixii ka soo baxa haddii rabbi idmo bal Mustafa waxaa jiray urur waa dhaweyd Nairobi lagu sameeyey waadna ka warhaysay waxaa kale oo jiray dad shacaba ama oo dulmudiid isu bixiyay dalka Mareykanka oo iska abaabulay kacdoomada kala duwan kii sii jiray jabhadu ay waday oo asagu qori ahaa kuwan waxaan ka wadaa habka nabadda wax ku raadinaya saad isleedahay waa lagu midayn karaa oo waa la isugu keeni karaa kacdoomada oo hal meel bay ka maartay ka shidaal qaadan karaan ayagoo isku xiran ama sidee la isugu xiri karaaba ما صدق عبد الرشيد horta isku xidhnaansho marka laga hadlo in la midoobo macnaheedu qasab ma isku xidhnaansho aragti iyo istaraatiijiyad baa jiri karta sida tawrmada kale hadday socoto dad mabda ahaan ka midaysan in dulmiga ay diidaan oo wax noqdaan oo waxay rabaan ugu caadiyay waxa koonka awrmada san la socoto taasay tahay ninkii malkii la soo dicay Dr. Marara oo kale urur buu leeyahay oo hadda tartan iyo xusuustaystay maaragtay ugu socdaa inuu xabsiga hore furto uu la tartamo ilaa 6 urur bay leeyihiin ma malaynaya ururada taas marka ma aha inay xumaan tahay waxa weeye dadkii baa ku kala duwanaanaya afkaar ahaan wadadii loo maray waxa ay rabaan mar haddii waxa ay rabeen ugu caadiyey in marka qof waliba meesha uu leeyahay meesha ka gudaha uu kala ceeb mala waxaa muhiim ah in laga midoobo xagga istaraatiijiyadda oo halkeen marayna iyo hadafkii laga midoobo waxa diiday inuu cadaan noqdo haddii taa la isku waafaqo qof meel buu ka eegaya qof baa ka eegaya xaggan ka dhudaay kale wuxuu ka eegaya xagga kale waxaad moodaa marka inaga dhankeena in waxoogaa kacadadii dowladihii ay soo martay iyo waxay ugu caama garanaya shuuciyadii iyo in jiilka hadda taliya ciddu dooni baa noqdeen maskax yar shuuciga ay ku jirto maskaxda shuucigana waxaa lagu yaqaanaa inay jiito tartanka inay jiito fikirka kale ee garab socda oo ay u aragto inuu halis yahay marka waxoogaa reenkaas shuucinimada yaad moodaa inuu dhibaato yahay laakiin in maaragtay dadku qofba meesha uu ka eego oo maaragtay dulmadiida oo kale hadda beenta caddi ka bilaabeen kacdoon bay bilaabeen waxbay diidan yihiin wacadiya waxay diidan yihiin wixii ka khaldan loo arko inuu khaldan yahay waa laysaga yimaado laga wada hadlo mar haddii la leeyahay waxaa loo hadlaya inay dhibaataynay dilay habeenna maalin kacay ilaa saacadda taaganahay sabab loo diido dadka oo aan dhibaato geysanin afkaar kastoo khaldan haddii aaminsan yihiin aragti khaldan haddii loo arka xitaa aan ma garanayo marka waxaan aaminsanahay aakhirka inta ay ka dhabta tahay in maaragtay dulmiga la diido way midoobi doonaan way wada hadli doonaan
waxaana muhiima in wada hadallada lagu mashquulay maaragtay aan u arkay inay wax ka soo baxaynin waxaa ka muhiimsan in inta isku mabdii horta ay wada hadashada oo aan la kala qoqobnaan taasaa ka muhiimsan taasaa ka mudan baan qabaan mar walba ururadaas la sameeyey iyo kuwo kaloo badanba waa loo baahan yahay waxaa keliya u baahan in dad fara badan diidaan dulmiga waa dhaweyd hal gurbaa diidanaa hadda 2-3 gurbaa diidan waa wax soo kordhan waa taanu tafraarku ma arko tafraarku waxa ahaa markii hore dadku badankiisu uuna iska jiif group uu lahaa annaga waxa maartay xanta ku hayna ya tafraar ku jiray ee la isku raacsanayn talada laftigeeda marka arrintan way inta badan waa aragtay sida doodaha socda ma garanayo qofku waxa uu mashquulayo dadii waxaasaa nala khaldan shalay maxaad shalay tooleeday haddaan toos u eego arrintan hadda kusaabsan qoryaan jid waaqe badiid saas sheegtay qabiilka waa la sheegayaa waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu eedeeyo xaggey joogeen shalay toole maxaa maanta soo kaakiciyey markii shalay dadka la dulmiyey bannaankay joogeen iyagu dadka hadulnay ka mid ahaayeen waa waxyaalahan jira soomaalida waxa ka khaldanaya ugu horreeya qabyaalada maanta waxa weeye waxaa la yidhaahdo mustafo waxaan u malaynayaa haddaan kaa dhex galo raallina ahow ma jecli diibli inaan maaragtay doodaadu inta badan inay ku wajahantaad moodaa dadka jabhadda taageera oo tiro yar hadda waxaan kaaga dhex galay directly kooxda aad u jawaabaysa anu waan gartay dadka badankiina way garanayaan laakiin haddaynu fiirno dal iyo dibadba dadku badankood jabhaddana ma taageersano cabdina ma taageersano the majority of the people oo deegaanka ka soo jeeda urur kale ma leeyihiin maya laakiin waxa cabdi iyo deegaankii ka socda lama qumano jabhadda oo neefsay wax u wadana lama qumano lamana qumanayn marka dadka faraha badan boqolkiiba anu aan ku qiyaaso 80 ama 90 oo labada dhinac midna aysan la qumanayn miyaysan habboonayn inta badan messagekaaga ama qoraalladaadu inay ku jeedaan halka 10% of the society ay qoraalladaadu ku jeedi lahaayeen raallaa waan kaa dhex galay waxaana kaaga dhex galay su-aashaas baa waxoogow aan islahaa dhowr jeer oo igu soo dhacday messagekaaga ama ka soo qaad haddii dulmidii hadda dadka waxoogow mucaaradada ku shubay waa dad tiro yar waad og tahay adiguba oo taageerayaasha jabhadda u badan kulligood ma aha u badan iyo dad qabiilo kala marka dadkaas waa minority dadka majority society-geena way cabsanayaan ma ahane labada dhinac midna ma aha miyaysan qoraalladaada iyo maadaama nin caqli badan oo qoraa aad tahay oo xigmad badan ilaahay ku siyaadiyo miyaysan habboonayn dadka faraha badan ee 80% ama 90% of the society si aad u organize garayn lahayd ama aad u jihayn lahayd inaad waqtiga ugu badan gelisid halkaad ka gelin lahayd 10% oo kor iyo hoos aan laga yaabin fikirkaaga qaataan وبعدين عبد الرشيد تاس مارتي ها ماجوريتي ها ماينوريتي فكرك ما روينا وحنا كيدا هذا ما دام واحد مارتي سنسس وراي ونقول واحد مارتي هذا دعاء لو قال كرعتاس شعبيتي هسه ما كروي لكن انا انت بدك هذا موضوع marka taagan ama dacdooyin jira marka hadii boqolkiiba 90 dadku ay waxa saas sheegta ay tahay oo ayna kuwaasi kuwa ficil siyaasadeed oo organized oo midaysan oo organized ay sameeyeen macna badan ma sameeyaan waxa ka muhiimsan oo ka xoog badan afar qof oo urur soo tagtay ya ka xoog badan oo ka power weyn marka waa si waxyaalaha aad aragtay weyn hadda adduunka waxa ka jira intaasoo milyan oo media oo shiinaha ka soo baxa oo Japan iyo shiinaha iyo Hindiya waxa ka soo baxa intaasoo kula jiray waxa soo baxa saameyn weyn ma laha haddana group yar oo inta badan lagu sheegay inay Jewish yihiin oo kale dadka media kooban bileeyihiin powerka ay leeyihiin iyo si waxman badan garan karta marka horta dadka fikirka midaysan baa xoog leh tirada dadku macna ma samayso haddii marka aqlabiyada aad sheegaysaa ay jirto oo ay yihiin dad maaragtay afkaarta aan ogolayn laakiin aan midaysnayn oo fikir midaysan oo organized thinking aan meesha la yimaanayn macna badan ma tahay fikirkooda lama dhigi karo sababta waa ashkhas bay noqonaysaa su-aasheedu waxay ahayd see loo organize garan karaa انت بدل ما تروح قريسو موضوع ما كان ليس هذا موضوع مش هتاجر موضوع عصب لنا موضوع عصب قطع سوق هذا حتى ما كان كان يارين انا حتى طبعا انه ما نشيل انت مسكحي جروب قاري كم يجي او عن له جروب كم شواب لكن سيده الى تاي بقى تاي
haddii dad ay dulmi diidaan in la diida ma ahan cid diidba isla marka si kale ugu sharxi lahaa ma jirin waxay ahayd haddii dadku dulmi diidaan in la diida maaha waa in la soo dhaweeyo waxaa laga yaabaa fikrintaas inay u socotay dad fara badan oo bannaanka jooga oo laga yaabo inay su-aalo badan ka qabaan laakiin cid baa isu qaadaysa oo odhanaysa aniga dhijeeda way dhacdaa mararka qaarkood in magacyo aan sheegno markaa magaca sheegno waa caddahay markaan magaca sheegin laakiin la isu qaado maaha anu dhar ahaan waxaan u arkaa hadda waxaa la yidhahdaa jira dangers of single story macnaha halista ay leedahay inaad ad isu sheekayso naftaada keliya waana mid ku badan soomaalida qabiil kastaa sheeka isaga u gaar u haystaa aniga saas wey aniga saa wey anisa ciddii kale fikirkiisii lama dhegaysanayo mana weydiinayo marka haddii aad aragto dad fara badan oo soomaalida qabiil kastaa ku gaar sheeganaya waxa uu isagu kala sheekeynayo wuu fidaya dadkii kale waxa ay ka hadlayaan haddii aan la weydiinin oo aan labadii fikir la isu keenin isma fahmay waa dhawey oo lahayn fahmo kala qabaaya isu keenay waxaa soo baxday dadku inayna afkaar ku kala duwanayn inayna wada hadlin ma wada hadlaan nin walba inta reerkiisa ula hadlaa marka nin walba inta reerkiisa marka ula hadlo waxaa imanaysa lumaya cabirkii dadka kale fikirkoodii baa ka lumaya oo dhibaata noqonaysa dulmadiid baan kusoo noqonaya maadaama arrin taagan tahay sheekada ah ejiga dulmiga intay shiisheen waa been matalan dulmiga cid walba ka jiiftay 7 sannadood dadkii dhibaatada ugu badan ay ku dhacday waxaa ka mid ah dhigax buur miyaad haysaa 4 oday oo reer dhigax buur oo maanta ka hadlaya dul ma haysaa 4 oday ma haysaa oo ka hadlaya oo aan ahay oo bannaanka jooga ma jiraan fiiq baa ka mid ah miyaad haysaa fiiqada bannaanka ka hadlaya ma lagu dhacay marka haddii 7 sano dulmiga laga wada hurtay dhammaan dadkoo dhan maanta markay guruub bannaanka jooga ay yidhahdaan dulmiga aan ka hadlaynaa isu in ceeb loo yeelo ma aha baan qabaa anugu iyaga laftigooduna waxyaabaha looga cabanaya ee garta loo leeyahay waa inay qaataan haddii dad ay shay u arkayeen inay khaldan yihiin oo iyagu ay qori iska qaateen oo duruufihii ku kalifay qoriga iyo waxa ay uga garaabayn maanta ay arkeen wixii ku kalifay inuu ahaa dhibaato loo geystay qof gurigiisii la qaatay qof gabadhiisii waa la qudsan la leeyahay waxaan maanta ka socda jijiga uu ka socda gobollada kalena marka iyaga inay ka garaabaan dadkaas wixii waxaan u geeyey inuunan ahayn kibir iyo qoyskala bood ee uu ahaa duruufo kuwan hadda iyagu ay la kulmeen 4 jibaar ama 5 jibaar ka adag way u garaabaan kaa daraadeed ay ka ilaalin luuqada laga yaabo in ay dhaawacdo dareenka dadkaas taa haddii la helo aakhirka waa la soo imanayaa cid dadka dulmiga diidan baa afkaarta ku midoobaya inta dulmiga jecelna dulmiga isku raacaysa waxaana guule dulmiga diidan haddii aan leeyahay waad mahadsan tahay su-aasha kale rabay inaan ku weydiiyo waxay ahayd soomaalidu fikirka kala duwanaanshaha fikirka waxay u aragtaa inta badan colaad iyo colaadin haddaad ka fikir duwan tahay iskuma dayi inuu ku fahmo laakiin cadow buu kaa soo qaadaya adoo laga yaaboba inaad daacad tahay ood maaragtay si aad uun isleedahay waxaan wanaaji ood si kale wax u aragtid marar badan bay ugu dhacday adduunyadan hormartayna waa la soo dhaweeyaa kala duwanaanshaha fikirka oo way ku farxaan waxa weeye waxay dhahaan waa qurux waa waxa horumarka keena xaqiiqatan waana waxa qofka shakhsiyan iyo waddan iyo hay'ad walba horumar waxa uu keena dadku fikrado kala duwan inay keenaan hadduu wuxuu hal fikrad yahay horumar badan ma keeno waana sunno rabbaaniya maxaad is leedahay soomaalida guud ahaan iyo dadkeena deegaankeenna khaas ahaan haddaad fikirkooda ka duwan aad keentid maxay kuu collaysanayaan oo cadow kugu arkaan adoo laga yaabo inaad cadow u ahayn laakiin aragtidaas ayna kula saxsanayn waa kulli waa koriinka bulshada baan u arkaa bulshada koriinkeeda heerkay taagan bay calaamad ka tahay dadka isku si u fikra isku waxuun isla qaata inta badan waxaa la yidhahdaa dadka interaction ka dhexeeya bulshadu aad simple loo yahay fikir ma garanaysaa dad badan baa ka qoray mar raba inaan hadda ka dhigo doodan halkan iminka dood lecture oo noocaayay jaamacad iyo waxaas kale oo aan hebel iyo waxaas soo qaato dad wax ka qoray laakiin guud ahaan dadku haddii ay yihiin dad maaragtay hadda matalan magaalooyinka oo kale waxaa isugu yimaadeen dad kala duwan madow caddaan dad aqoon leh kuwa aan aqoon lahayn kuwa xoogsataa kuwa maalqabeena marka dadka kala faraha badan isugu yimaadaan waxay marka dambe ay gaaraan heer ay cidda kale fikirkeeda ay maaragtay dhegaysato oo ay tiraa waa iga duwan yahay qofkani laakiin haddaad soo qaadato hal tuulo oo meel ciddaa ku taalla oo dad beeraley ay degan yihiin oo beerta laga shaqeeyo wax kale aan la qabin waxa dadkaasi ay ka sheekaysan karaan waa wax kooban
aragti badan markaa iskuma diidi karaa sababtaa waxa ay arkayaan iyo wax badan u dhexeeya ma jira iyaga marka isku si wax arkayaan beerta in la qodo fiican tahay ama ma fiicna cid ma fiicna oranaysa ma jirto marka interaction level of interaction ku xiran tahay haddaad u fiirsato Soomaaliya hadda jamhuuriyadda Soomaaliya way naga duwan tahay inaga dhanka fikirka waxaad arkaysaa in si ballaaran maaragtay dadku u doodaan si fiican ay u hadlaan si xorriyad ay arrimaha qaarka u soo qaadaan inaga xaggeena waxaynu ka mid ahay waddan maaragtay aan ka mid nahay ilaa hadda waddan aan la ogolayn si xor ah in loo fikiro marka mid qayb ahaan Soomaali kaliya ma ahe waa dhibaato aan geeska Afrika ku qabno weeyaan iyo waddamada Afrika badankooda Soomaali way ka sii hagjitaa oo waxoogaa anu Soomaali haddaad dhaqanka xabashida haddaad arki lahayd oo kale waxaad u garaab lahayd Soomaalida haddaad tartansiin lahayd waxaad odhan lahayd Soomaalida ayaa ka jecel in la doodo xagga Etoobiyaanka hadda social media-ga dhexdooda sidaas Soomaaliya si ka daran bay soo colaadiyeen in fact iyagu ma wada hadli karaan aniga hadda qof habeen walba isoo gelaya oo wax iga sheegaya sheekaysanaya marka waa arrin guud oo Afrika waxayna inta badan tilmaamtaa heerka kobaca maskaxda ee bulshada marka waxaan odhan karaa bulshadeenu waa beri xagga fikirka waa bulsho weli curdan marka ay aqoonta korodho ee badanka bulshadu ay maaragtay ay fahmaan in la kala aragtiduwaan karo waxaan wasi yaraan doonta waxaa laakiin mas-uulka abaan qabaa aqoonyahanka laftigiisa oo ka seexday oo u arkay bulshadii in intii sheekaysanaysa ay noqoto inta klaaska oo meel gaara la isugu yimaado marka doodaha ka socda meelaha shaha laga cabi iyo haddaad aragtay kuwa social media way kala duwan yihiin meelaha shaha ku cabno la fariisto ay yimaado fara badan oo kala duwan dooda adag oo diyaarisa ka dhacaya nooc walba laakiin social media lama geeyo inta badan iyadoo ujeedadu aan u arkay inay tahay in la yasayo dadka ku jira social media oo leeyahay dad aan wax baran baa jooga halkaas in hadda loo furo loo baahan qaab macasna waa ka dareemaa aad baad u mahadsantahay Mustafa waxaa jira socdaalan hadda Mareykanka ku tagan shalay ka soo noqday iyo wadamadan aan joogo dadka cabsida aad ugu badan especially dadkii deegaanka colaad badan bay ku soo jireen haddana sanadihii ugu dambeeyay dul culimo qastay noqdeen ayagoo wareerka siyaasadeed uu iska jiraba haddana cabsi oo gabadhaadii ama eedada in la kufsado ama walaalkaas sidii adiga kugu dhacday ama ayeeday sidii aniga ugu dhacday oo tusaale noolba u nahay waana wax jira marka anu waxaan qabaa in lagu jabin karo ayadoo qof walba uu hadlo rabbigiina uu aamino iyo qadarta ilaahay wixii dhacayaba ha dhacaan dadku way ku soo dhaweynayaan intaan Mareykanka tagay waxaan arkay kuwa jaaliyadaha cabdi u ahaa kuwii khadar dheere ku soo dhaweeyay Minneapolis ee shirar ka qayb galay ayaa martiqaad ii sameeyay qada ii kaxeeyay aan la sheekaystay kulligood way qirayaan dulmiga uma malaynayo in yar oo qaraabada sokay cabdi maahane inta kale cid ku taageersan cabdi ma jirto dib weyn meesha yaalo way wada qirayaan at the same time 95% baan dhihi karaa qiyaasteeda way cabsanayaan dadku in yar unbaa hadasho oo dhiiratay sababta marka sidaynu dadkan cabsida ooga baabi'in karnaa at least majority-gooda intooda badan hadday rabto in yar ha iska sii cabsato ayadooynu ognahay khatarta jirta cabdishiir qodobkaas horta qodob marka cabir iyo qiyaas u baahan maaha waa qodob maaragtay scientific oo laga hadlay oo qoran marka meel dulmi ka jiro gaar ahaan cadaadis dadka kala dagaalamaya fikiraan ama dulmi diidaan saddex qodob ayaa muhiim waa in la qaado oo u horeysa waa cabsida in la jebiyo ta labaad waa in maaragtay aamuska la joojiyo ta saddexaadna waa in miidiyaga maaragtay haddii uu qabatay saariya laga qaado haddaad gobolkiina dib u eegto kow dadka waxaa lagu hanjabayaa waa la cabsi gelinaya haddaad hadasho dhibaato ugu dhacaysa reerkiina la dilayaa adiga lagu dilayaa waxbaa kusoo gaaraya waa cabsi gelin ta labaad ha aamus wey oo ha hadlin cabsida markaa guud taas waxa weeye haba fikirin yaa ka mid a hadalkiiya maaha ta labaadna waa ha hadlin ta saddexaadna waxa weeye haddii xitaa cid hadlaysa oo diyaari ay jirto meel ay ka hadasho oo marka gaarsiiyo inay jiro kala dagaalan waxaan kaga lanahay social media oo qofka u sahlaya inuu hadlo laakiin waad ogtahay ilaacadihii hadda ilaacada kaanka ma jirto oo aad wax ka sheegi kartaa marka saddexdaa jira jaro ee ah fear silence iyo media maaragtay blockage-ka saddexdaa qodob in la qaada muhiim haddii la rabo in dulmiga iska qaado waxaynu ku bilaabaysaa inuu qof bilaabo
in la eegto ma dad badan baa ku oranaya hadda waxaan ka nahay waxa kamid ah berigii aan qori jiray lahaa George yaa yar dhalinyaro oo 20 jira oo jijirti waa isoo qoray message wuxuu yiri inaad Facebook ka hadasho waxa kaga maqal kartid xukuumadda ka jirta kilalka laakiin iyagu hal ficil sameeyaan adiga u yeelan karaa saameyn aad u ballaaran oo boqol sano soo socotay waxaan aad wanahay soo aanu inaxsanaa anu waxaan wanahay wiishan yaraatan jira oo ahayd xilligii qofku laabta garaaci jiray cabsida haysa iyo khalkhalka haysa ee weliba naftiisa aan ahayn qof kale oo banaanka jooga oo aan hadlayaale heerka uu gaarsiisan yahay inuu xitaa u leeyahay dhiirigelin baan yaan dilay maxaa dhacaya midabiyaan hadlo hooyada la dilay oo hooyada Soomaali kulma dilay maalin walba hooyada la dilay hooyada ka fiicanta habeen iyo maalin hooyada la dilay ma goormay dhamaanaysa marka هذا الوقت أدوك دمانس إيشك أسكت بين ينا هذين عندنا ما تعلو ولكن نبيه عندنا ما تعلو ويزي نديله لكن إيشك قوم دمانسا هدي قف وحن ونالله ورنا ولس سوتل مركا وحن قوانو هاوشن وحال كان كرائي قف أي صوب حندد وحنديدن وآخر له هذا الكهرية مركو هذا الكهرية هذا لو هاي مني إن سوى كلاس كهرية وقر هذا لسوته مركا قر هذا لسوته أسير عادي قاعد بكيد وقر wax walbo adduunka ka jirana waa la iska celin karaa waa la qaban karaa iska daa wiil yar oo shalay adiga kula mid ahaa oo maanta inta qoriyo wax la soo siiyay orada waxa doon samee dawladihii waaweynaa adduunka multi billion dollar rag haystay yaa inta loo kacay dadkooda isaawileen fikir laga hortagay banaanka la geeyay marka dulmigu haddii aan laga hadlin ama laga hor imanin iskii iskama dhamaado ba iskii iska tago oo si u joogno la oranayo uu dhamaaday maaha aad baad umahadsan tahay waqtiga aan ugu dheeraaday gabagabadii maxaad kusoo gabagabayn lahayd Mustafa ama fikirkaaga ah waad waxaan kusoo gabagabayn lahaa marka hore soo naqayaa sida inkastoo jeclaan lahaa in ay Facebook ahaado oo dadku ay sidaan uga cadilmeen waan jeclaan lahaa qoraalada aan sameynayo in dadku ay ogaadaan waxaan u yahay Facebook waxa la qorayaa waa kelmado kooban weeye 400 500 kelmadood baa yaa la qorayaa qofku caajisay hadii 200 laga dhigo la dheereeyo 500 kelmadood laguma soo koobi karo dhammaan mawduuca aad soo qaatay dhinac walba kama istaagi karto marka marka qaar waxaa arkaysaa maxaa soo waran weeyay sayaasan ku dartay sayna ku dartay waxa oranaysaa waxaan inta anigu inaan soo jeediyo aragtida soo jeediyo waa laga rabaa adiguna ku darsato laakiin تحليل كذا تبعه دائما تبحثه ونقولنا إنه وحي نقول أرتكل أنا وبوها فهنو قاعد نتذكرنا أتيشن كأي ليه إذا هو أخيرا مبلنا مكا إيه قابو وقف بيتسوون أخيرا هوست كومنت قرينيا مكا إن أردت اللي فهموا إن موضوع إذا لسوقه يدمانا إنه هين هو أن لنا سيدا كريو يعني وأن لنا إحساس عن إلى مقطع أدو وحي بلوك مقطع فكر كأنه ممكن الدوانا دواتها مرها إن qofkii colaad sato waaragto inuu dhibaato u sameeyo oo arkin haduu fikir ka hadlay hadii uu ku caayin ana dad badan bayra soo hadlo dheelaya waxa la yahay urheel barayday hal yahay barayday waxa ku leeyahay cayd waa maxay cayd sama qaaniyo wax sheeg waa kala gaar hebel uu khaldan yahay cayma waan ka soo qaatay waa khalad cayma waa daliil weyn marka daliisha iyo cayda inaan kala garanno laftigeeda oo marka qaar waxa aad qaali kugu ah hadii aan u arko inaan arabada sameeyay waxa dhibsan hadii cay noqoto معناها كنا بنقول لها إنسان ما له كنا رعاية مركا إن لا صوت القاطو إن فكر كان يسكع على لين أيامه ما أقول لها كنتي هدي مارتي وبصد سنتان تعديل لهنا جوان سكما وسيفة فاين لهي موضوع يفرق بنا وكلا عوان أنا طول مريض الكم تاعي يعني إيه خاص كهاي بار هنا لكن وان أنت أنا لوفر مسلاه وما صنعه هذه أفضل ما صنعه waxaan ku ballan qaadayaa insha allahu tacaala waxaan soo gelay waxaan imaanayaa magaalada Nairobi maadaama Cabdi maanta sheegay maadaama Cabdiilay uu meesha tagay Nairobi waan imaan doonaa hadii Ilaahay yiraaho waliba sida uu dhaqsaha badan intuu meesha ka tagin baan rabaa shir aad u weyn oo dulmadiida inaan ku qabano marka insha allahu tacaala markaas aan live ku horeysan doonaa ku ag fareysan doonaa hadii Ilaahay yiraaho waynu si fiican maaragtay aynu kala dhargi doonaa hadii Rabbi idmo arrintan ka raalaha Facebook wuxuu live ka Africa dib baa jira inta badan laakiin insha Allah taala asagana waan xalin doonaa TV baan ku rajaweynaa mar dhow inaynu furo
haddii ilaahay yidhaaho oo dadkuna ay garabna siiyaan annaguna aan dadaallo aad baan mustafa kaaga mahad celinayaa sida aad waktiga ugu hurtid dadkaaga inaad wacyigooda kor u qaadid qoraallada aad ugu samaysa xaqiiqatan anu waxaanahay dadka ku raaxaysta aftahanimadaada mararka qaarkood jilaabaa lagu moodaa si aad u dhigtid qoraallada jilaannimada ah both english iyo soomaaligaba axmaariga ma aqaano marka qofku wax walba inaad iskaga mid noqotaan ama isku aragti muhiim ma aha laakiin mar haddaad ogtahay qofkaas inuu damiir iyo dadnimo leeyahay aragtida siyaasaddu in la kala duwanaado wanaag iyo waxay keentaa qofka dhanka uu ka taagan yahay bal inaad isku dayda inaad ka istaagtid mara badan waxaa dhacda wax ila quman inuu qof kale fikriga duwan ii sheego aan dhinaciisii ka istaaga hawshii tiisu ay la saxsanaato marka outright rejectionka dadkeennu ay sameeyaan khalad baan u arkaa dhegayso qofka kale waqti sii inay tiisu kula qumanaataa laga yaabaa aad baan kaaga mahad celinayaa mustafa waraysigan aad aan kula yeeshay insha allahu tacaala waynuna soo arkaynaa maraan fogeysi life ayaynu isu waraysan doonaa aad iyo aad baad mahadsantaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adigaa mudan iyo dhammaan inta daawadayaasha ee la socotay barnaamijka waa mahadsantihiin mudanayaal iyo marweyn waa idinka raali gelinayaa marka hore barnaamijkii liveka ahaa waxoogow uu soo geli waaya kamaradda waktigii wuu dhammaaday inkastoo dad badan aad u badan ay saf ku jiraan oo ay rabaan inay ka qayb qaataan bal hal qof baan tijaabinayaa ma shaqaynayso sida caadada ahayd because mobilekaasi farsame si kale u yaala insha allahu tacaala khayr baan idin rajaynayaa nairobi inaan imaadana waa laga yaaba maalmaha soo socda hadday suurto gasho haddii intaa uusan cabdi maxamuud cumar uusan magaalada ka cararin beryahan dambe meeshay tagaanba waxaan jecelahay sidii khadar dheere minneapolis aan nooga daba tegay in shir dulmadiida lagu qabto oo indhahooda ay ku arkaan shacabku inaysan rabin oy ka daaleen inaysan rabin oy ka daaleen marka haddii reer nairobi aad sabaabishaan oo jir ku dhawaaqdaan this week waan imaanayaa anaa idiin imaanaya taariikhda shirka aad qabanaysaan iisoo sheega insha allahu tacaala waan soo degayaa marka waan imaanaya haddii ilaah yidhaaho aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu